magaalo soo martay xaalado kala duwan oo adag balse hadda u baxaysa iftiinka horumarka iyo meeqaamkii ficil ee ay ka hadhay guyaal tagay sababo la xiriira xaaladihii qalafsanaa ee nidaamyadii soo maamulay ay u geysteen magaalada aan ka hadlayo waa Fiiq xarunta gobolka Hirar oo kamid ah magaalooyinka sida fiican u sameynaya koriinka sida fiicanna uga faa'iiday isbedelkii ka curtay Itoobiya iyo deegaanka Soomaalida 2018 6 sano ka hor oo ku beegan xilligan aslahan magaalada Fiiq waxay ka soo bilaabatay horaantii qarnigii 19aad oo ay aasaaseen bulshooyin Soomaaliyeed oo xoolo dhaqato ahaa aasaaska Fiiq inay magaaladu waxa sabab u ahaa xilal gacmeedyo caan ay ku ahayd Fiiq oo xoolaha laga waraabsan jiray iyadoo kadibna noqotay goob ay xoolo dhaqatadu ka heli jireen biyaha iyo ganacsiga yaryar intaas kadib Fiiq waxay sameysay koritaan xoogan iyadoo xarun u ahayd gobolkii Nogob xatana ah xarunta gobolka Hirar دولة أنت تماعد وحكت استوحوه هي تلياني مركب ماشي لبى جروب كده اسم مجال مال هالكن هذا إنه أفرين لقى بالله إلى في قوين تن أو 4 كيلومتر مالها سنة إذا كيس هذا جنايو اسمياشي يجريه لقى حبوب شوجا هذا كامسون لا ليلها كامسون أنا واحد لوجو بحية فاستوين بكجتاجين وحكوا تيران واحد بضوء هرودة يوح بضوء عد بكجتاجين مرة تلياني قاس أوجه الرجال كهذا جرون كعيال كعياريان guri jeel ah ka dhisnaa oo sibirkiiba hadaba jooga kor markii in yar loo dhaafo laagta la talaabo dhanka kalena guri ay dhahayeen waa maxkamad yaa ka dhisnaa wax laga dhisay labada guri ugu horeeyay oo Talyaani oo ka dhisay Talyaaniguna xilliga uu yimid halkan kada waxay ahayd 1936 kadib haddana waxa uga dambeeyay Ingiriiskuna 1945 isagana ugu dambeysay 41 buu yimid afartan shantii isaguna ayaa Itoobiya ku wareejiyay hadana mar labaad dhulka uu dib ugu wareejiyay marka horta dhisma ahaan guri laga dhisay wixii ugu horeeyay waxaas uu ahaa waxa wixii ka dambeeyay markii Itoobiyadu ayay timid oo joogtay taariikhda hadda aan sheegayno wixii ka dambeeyay afartan shantii meelaha wixii ka dambeeyay iyo Itoobiyadu ayay joogtay marka dawladda Hayle Selassie ayaa dawladda Itoobiya aan ugu horeysay deegaanka timaada dawladda Hayle Selassie wax horumarin ah oo ay ka samaysay ma jiro kulli inta anu aan soo gaaray intii ugu horeysayna way jirtay laakiin inta anu soo gaaray wax horumar ka samaysay ma jirin waxay ka dhistay iskuulkan oo 6 qol ah guri ka dambeeyay hadda oo dumay oo isna 3 qol ahaayo gurigii maamulka degmada ah halkaas suuqa 2 qol oo ahaa iyaguna caafimaad ahaa intaas sistema ka dhigtay Itoobiya ka dhistay kadib adugu waxa uga dambeeyay Mengistu Hayle Selassie iyo Mengistu Hayle Mariam iyo wixii ka dambeeyay baan u joogaano marka wixii inta ka horeeyay Talyaani iyo Ingiriis ahaana taariikh ahaan ayaan ku soo gaaray odayaal reer aan ka soo gaaray iyay ahaayeen marka intii anigu aan soo gaaray Hayle Selassie iyo Hayle Mariam TPLF iyo maamulka hadda maanta jira afarta maamul baan ku soo gaaray anigu magaaladan juqraafiyahan magaalada Fiiq waxa ay qiyaastii 195 kilomitir koonfur galbeed kaga beegan tahay magaalada Jidgee ee xarunta deegaanka Soomaalida waxay ku taalaa joog dhan 1229 mitir oo ka sareysa heerka badda magaaladu waxay dhaxda ka jirtaa buuro qurux badan oo muujinaya muuqaalkeeda cajiibka waxaan oran lahaa waa magaalo buuraley ah oo saaweysa magaalada Harar oo magaalooyinka kale deegaanka waxay kaga duwan tahay buuraleyda oo magaalo aad u qurux badan noqonaysa kolka ay dhisanto magaalo buuraley oo bilicdeeda soo saaraya markaad soo dhex taagan tahay kolba qayb aad qaybna ka qabsoomayso marka waa magaalo aad u qurux badan oo markay dhisanto mustaqbalka magaalo qurux badan noqon doonta hadii la yiraahdo buuraha ku hareeraysan magacyadooda leeyihiin buuraha ugu caansan ee magaalada Fiiq markaad timaado markaaba aad indhaha ku dhufanayso 3 buurood baa ugu caansan waxa kale waa buuro silsilado ku wareegsan dhamaan waxay ku jirtaa xaray ku jirtaa magaaladu oo buuraha ku hareeraysan laakiin 3 buurood baa ugu caansan oo laga magac dhabi karaa waxa weeye buurta ugu weyn oo duudweyne la yiraahdo buur soo raacdo oo duudub la yiraahdo naas gabdheed oo soo raaca baadi baa isaguna jira afarta buurood baa ugu weyn oo macnaha ugu muhiimsan laakiin buuro kala ku wareegsan dhamaantoodna magacyo leeyihiin gaala gubatay baa kamida oo meel volcano mar hore ka qarxay oo
dee lasoo arki karo oo madoobaatay magaalo gubatay dadkeennii hore odhanayeen baa ku taalla marka waa magaalo buuraley ah oo ay buurasaa ugu xeeran yihiin. magaalada fiiq waxay caan ku tahay isdhexgalka iyo wada noolaanshaha bulshada, barashada diinta islaamka, xifdinta qur-aanka kariimka iyo kutubta culumta kala duwan ee diiniga ah, taasoo ay keentay inay noqoto magaaladu mid diinta lagu barto. fiiq horta waa magaalo buuraley ah, waa magaalo ay buuruhu muxuu ahaa ay ku wareegsan yihiin, way ku xayndaaban yihiin. waa magaalo cimilo ahaan cimilo dhexdhexaada leh. waa magaalo inta badan dadka jooga ay xaafidul quraan yihiin. waa magaalo inta badan quraanka kariimka ka faa'iideysato oo sheekheena Allah barakeeyo Sheekh Maxamed Shaafici oo muxuu ahaa oo dhidibada u qotamiyay dhammaan dhalinyarada magaalada. waa magaalada kaliya cid joogto oo quraanka aan dhamaynin laga yaabo inaan laga helin. inta badan muxuu dhalinyarada ay wada xaafidul quraan yihiin. marka inta badan waxaan leeyahay magaalada quraanka iyo magaalada muxuu ahaa diinta waa magaalo dhaqan ahaan bulshada ku nool ay dhaqanka inta badan noloshooda dhaqanka islaamka ay ku tiirsan tahay oo muxuu ay iswaafaqaan. marka tilmaamaha aan oran karno waxyaabaha aan oran karno magaalada ku tilmaami karno waxyaabahaas ka mid ah. waxaa kaloo magaalada nadu ugu muhiimsan caan ku tahay waa xaruntii diinta weeyaan. magaalada nadu xufaadda deegaanka ka tartanta ama wadanka ka tartanta ama heer caalami ka tartanta waa magaaladii soo barbaarisay hoyga waa weeyaan. magaalada nadan isagoo intaasoo madarasa ku yaalaan haddana waxaa gaar u sii ah oo ku yaala macad quraanka lagu xifdiyo quraanka lagu barto wax kale lagu barto. macad gooni ah oo magaalada marka xagga xamar looga sii baxayo ka soo horjeedka duudweyne ku yaala oo macad quraana oo ardada qirooyinka kala duwan lagu baraa ku yaala magaalada nadan. xufaad fara badan oo ka soo baxeen. marka magaalada waxaa kaloo ku tilmaami karaa inay tahay magaaladii diinta. inahaas ugu muhiimsan baan maleynayaa waxyaaba magaalada aan ku tilmaami lahayn ay caan ku tahay. magaalada nadan waxaa kaloo ku tilmaami karaa oo ay caan ku tahay sida aan ognahay Soomaalida marka ay diintu soo gaadhay alif beetadan alif kordhabay alif loos dhibay Soomaalida sameysay. culimadu marka ay dadka quraanka gaarsiinayeen alif beetada la baranayay goobihii kow Soomaalida laga bilaabay xarun bay ka ahayd fiiq. tusaale cadeen waad soo arki kartaan waxaa jira dhisme qadiimi ah oo dhowr boqol sano ka hor ahaa magaalada fiiqad ku yaala oo aanu maleynay inuu 2 kiiloomitir badh ugu badnaan ka baxsan yahay magaalada oo duudweyne dabadiisa ku yaala Sharif Cumar Juud la yiraahdo. waa goobihii sida ay odayaasha iyo dadkii hore tilmaamayaan waa goobihii quraanka lagu dhiganayay. oo alif kordhabay alif loos dhibay alif la gudeedan Soomaaliga loo bedelay alif beetadii Carabiga goobihii lagu dhigay dadka lagu bariyay weeyaan. marka isku soo duuduub magaalada nadu waa magaalo caan ku ah barashada diinta islaamka. dhanka horumarka aasaasiga ah iyo kaabayaasha dhaqaale fiiq waxa u dhan si fiican ah looga faa'iideystaa adeegyada aasaasiga ah ee biyaha, caafimaadka iyo waxbarashada. biyaha oo bulshadu ka cabi jireen ceel gacmeedyo la dawliso iyo riig la luli jiray oo bam gacmeed lagaga cabi jiray ayaa hadda waxay leedahay biyo gelin dhammaystiran oo lagu reeyay sanadihii u dambeeyay. magaalada markaan soo dhaadhano iyo guud ahaan degmadaba adeegyada ka jira waa degmo uu ka jiro leerka 24 saac sidoo kale network walow muxuu ahaa oo dhaliilo fara badan ay ka jiraan. sidoo kale adeegyada waxbarashada, adeegga caafimaadka hospitaalki, institutionada muxuu ahaa kulliyadii muxuu ahaa farsamada gacanta, school boarding, wakaalada biyaha. guud ahaan marka adeegyo ballaaran baa ka jira walow ay adeegyada ka jira laftooda meelaha qaarkood ay iyadan dhaliilo ay ka jiraan. laakiin waa degmo adeegyadii aasaasiga ahaa inta badan ay u dhameystiran yihiin. waxaa kaloo ka jira laami isku xidha iyadii muxuu ahaa baabili ilaa iyo iimi isku xidha oo runtii adeeg ballaaran muxuu ahaa bixisa. muddadii laamida iyo wadada ay bulshada hesheen noloshoodii iyo muxuu ahaa nololeedkoodii iyo dhaqaalihii iyo ganacsigiiba isbedel ballaaran muxuu ahaa ay ka heleen. sidoo kale dhaqanka Soomaaliga ah dhaqashada meesiyada xoolaha iyo farsamada gacanta ayaa ah qaar ka mid ah dhinacyada ka qayb qaata hodantinimada dhaqanka ee fiiq.
nolosha bulshada inta ugu badan waxay ku tiirsan yihiin waa dad inta badan isku xoogsataa muruqmaal ah sidoo kaleeto muxuu ahaa inta badan khayraadka xoolaha nool inta badan ay noloshooda ay ku tiirsan tahay sidoo kaleeto iyadana muxuu wax soo saarka beeraha iyada lafteeda muxuu ka faa'iideysto si ballaaran uga faa'iideysta walow abaaro iyo muxuu ahaa marar badan ay yimaadaan oo xoolihii iyo muxuu ahaa beerahaba saameyn ballaaran ku leh marka habnololeedka bulshada waxaan oran karnaa waxa ku tiirsan tahay xoolaha nool iyo wax soo saarka beeraha iyo ganacsiga yaryar sidoo kaleeto waxay muxuu ahaa iyadana muxuu ahaa waxyaabaha u badan ee ka faa'iideysto waxa kamid ah waxyaabaha ay la midka yihiin muxuu ahaa malabka khayraadka dabiiciga guud ahaan khayraadka dabiiciga waxyaabaha noloshooda inta badan ay ku tiirsan tahay kamid ah dhacdooyin kala duwan ayay soo martay magaaladani kuwaasoo xasuustoodu ku jirto qulubta shacabka ku nool magaalada fiiq Hayle Salaase dawladdiisii iyo shacabku iskuma xareysnayn tii Mingiste iyo shacabku iskuma xareysnayn tii BLF iyo shacabku iskuma xareysnayn sababtoo ah qofka bini'aadmiga maanta 12 saacadood oo isku wareeg ah kumuna fikiraynin ee shacabka ihi dawladdaas armaad ka nabad gashaa kumuna fikiraynin ama wax ka soo gaaraa mooyin ama maamulkeeda ha noqdo ama ciidankeeda ha noqdee saddexda maamul ee hore si shacabku dhab ahoo ay isku aaminsanaayeen oo inayna wax waxyeelay kaga imanayna u aaminsanaay ma jirin isbeddelka hor degmadan waxay ahayd degmooyinkii dhibaatooyinka faraha badan ay ku hayeen caqabadihii nabadgelyo la'aaneed ee hadda ka hor muxuu deegaanka si guud uga jiray degmooyinka sida adag ay muxuu u saameeyeen bay kamid ahayd isu socodka haday tahay ganacsiga iyo muxuu nolosha bulshada haday tahay dhibaatooyinka ugu faraha badnaa ee deegaankeena marka la dhaho degmooyinkii ay muxuu dhaxalsiiyeen bay kamid ahayd degmadani marka maanta oo isbedelkii laga joogo 6 sano kadib waxaan oran karnaa fiiq muddada yar ay jirtay isbedelkii nabadgelyada ay heshay ay ku tallaabsatay waa isbedel baaxad leh oo cid kasta oo muxuu ahaa soo booqatay cid kasta oo muxuu ahaa hadda koor ugeyd halka ay taagneed ay ka marakaci karto marley waxyaabo badan baa horta naga soo maray magaaladan haddii aan ka soo bilaabo ardaynimadii iyo dhalinyarnimadii waxaa naga soo martay magaaladan in dugsiga hadda Sayd Cali yiraahday magaalada ugu weyn ee xarunta magaalada ku dhex yaala wuxuu ku joogay koobaad ilaa 6 baan jiray waqtiga dhargii burburtay koobaad ilaa 6 buu ahaa dugsigaas wax ku baran jiray waa wixii dhargii kadib weeyaan dugsigaas wax ku baran jiray ardaydii anaga naga horeysay markay 6 dhameeyeen macallimiin wax u dhigaa la waayay isla 6 dib loogu soo celiyay sanadkii hore 6 baan isla sanadkii labaad 6 baa ahayd waxa kale oo soo taagnayn waa taqaanaa dadku waxbarashada nin walba ilmihiisu wax bartu jecel yahay fasalka 7 markaan dhameynay oo muddo saa u sii fog bama 93 baa ahayd tirsiga Ethiopia markaan fasalkii 7 dhameynay fasal 8 ma jiro fasalkii 7 ugu horeeyay fiiq lagu dhigan kamid anigu 13 arday baan ahayn 4 gabdhood iyo 9 wiil baan ahayn markaan 7 ka dhameystiray waxay noqotay nin walba inuu meesha u tagi karo oo aado hadda magaalada waxaan la joogo tuulooyinka magaalada ku soo dhow degan dhalinyarada maalinka duruufta u saamix weydeen bedeshaan oo meel kale aadaan waxbarashada markii ugu dambeysay oo aan 7 kadib waxba baranin waxyaabihii macnaha maskaxdeed ku soo noqnoqday nin markaan fasalka 5 ahayn yar kaalinta koobaad noo galay markii nin walba oo meel aaday ku qabri beex aada ku harar aada ku jijiga aada ku ninba meeshii ehelkii u maleynay uu aado ardayda markaa meel aadaan waday bartii waxbarashada ka hadhan ardayda ugu fiicnaa ugu waxbarashada fiicnaa markaan yareerayna kamid ahaa dhanka markaan yareerayna danka soo qaado waxyaabahaas noogu yaabadnaa oo macnaha waxyaabaha maskaxda aan ka baxayn ee kugu soo noqnoqonaya ee kamid tahay iyo marka hadda la soo barbardhigo sida wixii uu hadda isu dul saaran yahay ilmi intuu koobaad kaga bilaabo ilaa 12 ku dhameeyay jaamacadii lafteedii inuu isla halkan ka helo ay u dhowdahay waxyaabaha kale iyaguna naga soo maray kolkii dambe aan ama macallimiin noqonay ama aan shaqo bilownay oo waxyaabihii nabadgelyo darrada ay dhibaatooyinka wadanka soo dhacay baa kamid ah kuwa meel walbana ay soo saameeyeen annagana saameynteeda nagu lahaa in iskuulka dhigaysa lafteeda uu noqdo xero ciidan oo mararka barkood iskuulkiiba la xidho waxyaabaha aan gaarka maskaxdeeda ka bixin waxaa kamid ah in arday imtixaan aadaysa inta halkan ka lugayso ay jigjiga ku tagto oo imtixaan ku soo galaan mar maskaxdeeda ka bixin lugan ku soo noqon
sababtoo kaambey baa lagu bixi jiray kaambeyna de iyo imtixaanka la isma saari karo imtixaanku jadwal buu leeyahay kaambeyguna de ma bishiiba dabayaaqadeedu baxaya waayo imtixaankii aad galaysay dhowr iyo 10ka ma waxaad sugi kartaa 30keedii ma sugi kartid marka ardayda inta halkan ka lugeeyeen oo dugsiga la aaday yaa jijin imtixaanka lagu soo galay dugsigana wuxuu yeeshay fasalka 10aad shahaadiga fasalka 10aad ee shahaadiga dugsigan Mahdi Ayuub wuxuu yeeshay 95 tirsiga Itoobiya iyo ardaydii ugu horeysay galeen ardaydii ugu horeysay fiiq imtixaan ku gashan 2001 bay muddada 6 sano u dhaxaysay ardadanadu inta halkan ka lugeeyeen bay jijigaadi jireen muddo 6 sano imtixaanka inta halkan ka tagaan oo jijiga tagaan bay jijigu soo gali jireen marka waxyaabaha maskaxdeeda ka bixin weyn bulshada fiiq waxay noloshooda ku tirsan tahay inta ugu badan dhaqashada xoolaha oo si aad ah ayay caan ugu yihiin qodashada beeraha ayaa soo kale qayb ka ah taasoo noqoto xilli roobaadka iyo soo kale khayraadka malabka fooxa iyo ganacsiyada yaryar waxayna xarun ganacsi iyo dhaqaale u tahay bulshada degmooyinka gobolka Erar iyo Nogob waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan hadda aan xusi karno waxa kamid ah malabka fooxa xabagta waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan marka aan maanta aan tilmaami karno haddii aan falsasmeehaan hataa aan booqan karno nolosha iyo bulshada ganacsigooda waxyaabaha u badan ay ka ganacsataan waxyaabahaas kamid ah tusaale waxaan ku mijinaa nimka xaafad walba oo tagto hadda halkan aan fadhinaa tusaale aan soo qaadan karnaa geedda nimka 3 sano kama badno inta ay jiraan marka waa magaalo saa u muujinaysa geedka laga beero waxa kale oo aan oran karaa waa magaalo wax soo saar nimka magaalada fiiqaad waxa ay ku tiirsan tahay khudradda inta badan kaafteeriyaasha laga isticmaalo hadday babayga noqoto hadday maangada noqoto hadday saytuunka noqoto hadday liintan dhanaan noqoto intaba magaalada fiiqaad baa laga soo dhaxsaaraa hadda xaafadaad gashaba geed miroodkaasi uu ku yaalaa marka waa magaalo xagga beerahana wax soo saar ku leh oo beerihii magaalooyinka laga helayo weeyaan fiiq sanadkii ugu dambeeyay waxay si toos ah uga faa'iideystaa ama dhaqaalaheeda ku soo biiray il ganacsi oo cusub taas oo ah saylada cusub ee xukuumadda deegaanka ka hirgelisay sayladan maalmaha ay shaqeyso oo ah toddobaadkii 2 maalin gaar ahaan maalinka sabtida oo ah maalinta ugu weyn waxa isugu yimaada boqolaal neef oo noocyada kala duwan ee xoolaha ah kuwaas oo laga keeno meelo kala duwan oo gobolka Erar iyo gobolka Nogob ah iyo sidoo kale gobolada dariska la ah dhinaca Oromada waxaana suuqa ka faa'iideysta bulsho kala duwan oo iyaguna ka timaada gobolada dariska ah sida Jarar Qorraxay Nogob ee gobolka Bariga Hararge gobolka Faafan iyo caasimadda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jijjiga iyo meel kale oo ka baxsan gudaha wadanka saylad balaaran oo guud ahaan gobolka iyo gobolada dariska goboladan Oromiya ee xuduudda la leeyahay dariska aan nahay soo kale deegaanka saylad balaaran oo adeeg balaaran ka bixisa weeyaan maalinka aanu astaynay gabayaha ee xoolaha lagu kala iibsado dadka isugu yimaada tira ahaan waxa ku qiyaasnaa dad 2,000 kor u dhaafaya dadkaas cid kasta oo meesha timaada nolol maalmeedka meesha way ka helaan waxay noo sheegeen bulshada muddada yar ee sayladu jirtay isbedelkii dhaqaalaha magaalada soo galay iyo lacagta kaashka ee maalinka soo gasha waxaan ku qiyaasnay lacag ilaa 30 milyan ilaa 40 milyan lacag aan ka yareyn baa maalmaha qaar ko soo gasha maalinka kaliya shirkadaha qaar kood baa 12 milyan la yimaada shirkadaha qaar kood 7 milyan 6 milyan marka lacagaha la isku daro cash circulation ka maalinka gabayaha magaaladan soo gala transferka bulshada xoolaha wadata iyo bulshada lacagta wadata isku daamarsan lacag kolka ugu yartahay 20 milyan yaa laga yaabaa maalmaha qaar kood inay geela soo gala maalmaha qaar kood waxa soo gala geel inta xorada buuxsanto yaa dibadda lagu kala galaa saylada soo kale xoolaha iyana ariga oo kale iyana soo gala saylada loo asteeyay loo sameeyay inta buuxsanto yaa saylada looda oo aan inta badan anaad u shaqeynin yaa iyadana buuxsanto marka dadkaas oo dhan cid kasta oo meesha timaada waxay ka kooban yihiin kii xoolaha watay kii xoolaha gadanayay labadii u kala gadaysay kii u xareynayay kii u celinayay dadkaas marka la isku daro waxa laga yaabaa
halka neef inay ka faa'iido dad ilaa dhowr iyo toban silsiladood oo muxuu ahaa isdaba yaalla marka guud ahaan nolosha bulshada wax weyn bay ka tartay. magaalo soo martay barxalada kala duwan isla markaana hadda u diyaarsan inay la tartanto magaalooyinkii ficeed ahaa ee ay hadda ka hor ka hadhay sababo la xiriira xaaladihii guracnaa iyo dhibaatooyinkii soo maray kuwaasoo inta badan kaga yimiday nidaamyadii maamul ee hadda ka hor ka soo arrimi jiray. magaalada aan ka hadlayo waa magaalada Fiiq oo xarun u ah gobolka Erar isla markaana ay hoos yimaadaan 8 degmo. magaaladan Fiiq ayaa hadda waxa uu dhameystiran dhammaan adeegyada aasaasiga ah iyo kaabayaasha dhaqaale taariikh badan oo soo martay kadib hadda waxa uu soo baxay iftiin kaasoo hadda ay magaaladu u diyaarsan tahay inay horumar ballaaran sameeyso shacabkeedii iyo bulshadeediina ay hadda u diyaarsan yihiin inay magaalada Fiiq ka dhigaan mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn uguna quruxda badan uguna dadka badan magaalooyinka deegaanka Soomaalida. magaaladan ayaa hadda u baahan inay ka korto heerka degmanimo ee ay hadda ku jirto sababo la xiriira korriinka ay sameynayso iyo baaxadda ballarka in adeegyadeeda ay dabooli lahaayeen oo kaliya maamul magaalo sida ay qabaan dad badan oo ka mid ah bulshada magaalada Fiiq. 2017 qorshaha lagu darsado magaalada Fiiq waxa ugu muhiimsanaan lahaa in magaalada balorta ay hesho maamul magaalo sababtoo ah magaalo ballaaratay kala tagtay miisaaniyadii degmadu laguma maamuli karo magaalada Fiiq oo intaas ay 40 qabal hoos yimaadaan iyo magaaladii oo sidan u weynaatay miisaaniyad degmo wax lagu maamuli karo ma aha marka inay miisaaniyad maamul magaalo inay hesho way fiicnaan lahayd oo waxyaabaha soo dhaweynay ka noqon lahayd. waa magaalooyinka ugu waaweyn deegaanka marka laga yimaado 6 maamul magaalooyinka soo raacay ka mid ah miisaaniyadda aan ku maamulo iyo adeegyada ka jirana way kala ballaaran yihiin. waa magaalo muxuu ahaa aad u koraysa aad u fidaysa oo u baahan miisaaniyadda aan ku maamulo miisaaniyad ka badan oo muxuu ahaa miisaaniyadda dawladda haddii ay tahay muxuu ahaa jidadkii haddii ay tahay muxuu ahaa bridgeadii maadaama oo magaalo buuraley tahay laaga far badan baa mara haddii ay tahay bridgeadii haddii ay tahay bilicdii magaalada marka waxyaabaha aan tabayno ay magaaladan aan isleenahay haddii ay heli lahayd intan iyo in ka badan bay sii fidi lahayd waxaan isleenahay haddii maamul magaalo ay heli lahayd oo miisaaniyad maamul magaalo lagu maamuli lahaa magaaladan bilicdeeda iyo muxuu ahaa mustaqbalkeedaba si aan ka sii wanaagsanaan lahaa. أخيرا intaas waxaan idinku soo afmeeraynaa barnaamijkan ka diyaarinay magaalada Fiiq ee xarunta gobolka Erar. barnaamijka waxaa duubay Cabdisalaan Nimcaan iyo soo kale Axmed Khaliif dhanka habeyntu waa Sharmarka Cusmaan waxa soo kale kaalin ka qaatay saaxiibkay Xasan Abiib. tani intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah anagoo isku duuban sidaas iyo amaana Allah.